بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد إخواني في الله إن شاء الله تعالى وحين كلمات كوبا كأوران دونا كيف نستقبل شهر رمضان سيدابين أقابلنا أو أسر دوينينا bisha ramadaan ee barakaysan ugu horeyn naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa taasi oo ah tii uu alle u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaahay waxau inoo dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanno taasi oo ah wixii laynaga doonay wixii aynu ka awoodayno inaynu kala nimaadno wixii laynoo diidayna inaynu iskaga dheeraanno oo ka fogaanno cabsida ilaahayna waa ta aynu ku liibaanayno fi dunya waalaakhira waxaa kaloo xusid mudan kownkanba waxa la inoo keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu ka cabsanno oo caabudno wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay waxa uu tilmaamayaa haqalaynka labada la culaysiiyey ee takliifka la saaray oo jinka iyo insiga ah waxa loo abuurtay inay tahay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaystaan oo ka baqaan oo wixii uu ka doonayana wixii ay ka awoodayaan kala yimaadaan wixii loo diidayna ay iskaga fogaadaan waxaa kaloo xusid mudan warabbuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu doono isagaa abuura isagaana ilaahay ciddii uu rabo iyo wixii uu doonayo doorta allahu yasطafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka xaggiisa iyo xagga malaa'igtaba waxa uu ka doortay kuwa uu soo diray maalan malaa'igta malakuljibriil ayaa ugu mudan oo waxa weeye markaa malaga markaa waxyiga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo umuuro badan oo kaleba uu u dhiibay uguna mudan malaa'igta ah oo wakhtiyada qaarkood si gaara loo xuso tanazzalu almalaa'ikatu waaruux waxaa ka mida kuwa uu doortay israafiil ka suurta afuufi doona iyo mikaa'iil oo masalan arsaaqda iyo waxyaabaha noocaas iyo roobabka iyo umuuraha noocaasiyo loo xil saaray marka ilaahay malaa'igtiisa cid buu ka doortay bani aadamkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada ayuu ka doortay ambiyada waxa uu ka sii doortay rusushiina maalan ululcasmigii ayaa laga sii dooray ululcasmigiina nebigeenna sala allahu alayh wasalam ayaa laga sii dooray tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd nebigu sala allahu alayh wasalam waa sayidu waladi aadam walaa fakhr waa ilmo nebi aadan sayidkooda iyadoo wax faanahi aanay jirin calanka mahadduna maalinta qiyaame gacantiisa ayuu ku jiri doonaa sala allahu alayhi waaalih wasalam sidaas si leeg ilaahay bogcadaha waa kala doortay oo bogcad la arko waxa ugu fadli badan maka ayaa ugu fadli badan maalan madiina labada xaram oo markaa ku soo xigaysa baytulmaqdis masalan mawaadicda kale lafteeda masaajidada meesha uu alle ka dhigo ayaa ugu qiimo badan marka ilaahay mawaadicda lafteeda waa kala doortay ee ma wada sinna ee waa la kala fadilay sidaas si leeg baa samooyinka loo kala fadilay sidaas si la mid ah ayaa bilahana loo kala fadilay marka bishan ramadaan
وبالإلهي سبحانه وتعالى وبلها كلا كفضلي ونسودتي قرآن كيس الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa bisha uu soo dejiyey qur'aanka ee samadan soke baytul cizaha loo soo dejiyey kadibna waxa weeye awdaacda iyo waqtiyada kala duwan marba qayb lagu soo dejinayay waa bishii markaa la soo dejiyey wey waa bil waxa weeye cadowgeennu uu jabayo oo shaydaanka ah uu kow ka yahay inna ash-shaytaana lakum caduwwan fattakhiduuhu caduwwa shaydaanku col buu idin yahay ee col ka dhigta iyo cadow ka yeesha inna ash-shaytaana lil-insaani caduwwan mubiina shaydaanku waxa uu u yahay bani aadamka waxa uu u yahay cadow cad cadow cad ayuu u yahay oo waa cadowun mubiin wey marka xaqiiqatan shaydaankii nooca ahaa waa la silsiladaynaya iyo maradatul jinn kuwa jinka madaxa adag leh qofka bani aadamkaahina wuxuu arko wuxuu ugu jecel yahay in la yidhaahdo guul baad gaadhaysaa cadowgaaga kaa soo hor jeedaana waa jabaya marka bisha ramadaan waxyaabihii qofka mu'minka ah yididiilo gelinayay oo dhan baa loo hagaajinayaa hadday tahay jannadii oo albaabada loo furayo oo aan hal albaab laga xidhayn hadday tahay acmaashii oo masalan la labanlaabayo haddii ay tahay soomta oo loo ballan qaaday ajar aan xadba lahayn yacnii waxyaabihii qofka mu'minka ah farax gelinayey ayaa waxa weeye loo fudaydinayaa bisha ramadaan gudaheeda waxaana laga oodayaa wax kasta oo markaa murug gelinayey hadday shaydaankii oo laga silsiladaynayo tahay hadday albaabadii naarta oo laga xidhayo tahay hadday tahay waxa weeye naftii hawadeeda raacaysay ina annafsa la ammaaratun bisuu tii xumaanta faraysay naf oo dhan maaha oo waxa weeye majaaridii uu shayddaanku ordayay marka la cidhiidhiyo iyada lafteedu dulloobaysa oo layli qaadanaysa waxyaabihii masalan daacaadka ku riixayay oo dhan baa loo sahli waxyaabihii xumaanta ka qabanayay oo dhanna waa laga xidhayaa wax badan oo ka mid ah sida adilada ku timid marka tan noocaasi ahi waxay muujinaysaa khayrka iyo wanaagga ku sugan bishan iyada ah iyo inay tahay dadka ahluliimaanku inay ka faa'iidaystaan marka ay sidaa tahay waxaynu leenahay ugu horrayn bishan barakada badan leh waxaynu ku qaabilaynaa sidii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuba ay ku qaabili jireen salafu haadihi alummana ay ku qaabili jireene si badan ay ugu danayn jireen in ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan ku simo khayrkeedana waafajiyo marka ugu horrayn waxaynu ku qaabilaynaa bitawbatin saalixa alsaadiqa ila allahi tawaab araxiim ilaaha alle ee tawaabka ah alraxiimka ah ilaaha subxaanahu wa tacaala toobadda aqbala ee toobad aqbalka badan leh ee waxa weeye naxariista mu'miniintiisa uu ku gaar yeelay ee raxmaanka ah ee taguudna naxariista waxa aynu ku qaabilaynaa inaynu u toobad celinno
oo wixii dunuub aynu ku jirnay aynu ka baxno iyadoo mar kastaba ay waajib tahay toobaddu marka wakhtigan shariifka ah ee qiimaha badanna way ka sii mudan tahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun waxaynu leenahay addoommada allow sida alleba uu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena sidaa u dhan tihiin waxaa mudan tihiin inaad liibaantaan nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u istikfaarsado una toobad keeno fi lyowmi 100 mara maalinkii 100 jeer maalinkii 100 jeer inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqdo innaga oo dunuubteennu ay ina cuslaysay nebigu sala allahu calayh wasalam waa sayidu waladi aadam ilma nebi aadam waa sayidkooda iyadaan wax faanay jirin dembigiisana kii hor iyo kii dambeba waa la dhaafay misna sidaasi buu u toobad keenayaa innaga oo dunuubtu ina cuslaysana maxaad u malaynaysaa in badan bulshadu marka la yidhaahdo ha la toobad keeno waxaa laga yaabaa si gaara inay u jalleecaan ahlulmacaasiga dadka macaasida waxa weeyaan ay daahir ka tahay ee muuqanayso inay yidhaahdaan war dee toobad keena waaba la leeyahay oo isagu aad mooddo ka lala hadlaya inaanu ahayn innaga ayaa toobadda ugu mudan inaynu toobad keenno qof kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoon dheeraada u leh oo cilmi u lehna had iyo aad buu u mudan yahay inuu toobad keeno uu fahmo ilaahay xaqii uu ku lahaa inaanu gudin bal inaanu dhodhowayn bal inuu gaboodfal badan kaga sugan yahay arrinka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ugu horrayn waxaynu leenahay aan toobad keenno ilaahayna subxaanahu wa tacaala toobaddeenna waa ku farxayaa sida xadiiska saxiixaynka ku timi lallaahu ashaddu faraxan bitowbati cabdihi xiina yatuubu ilayhi min axadikum kaana cala raaxilati biardin falaah ilaahay subxaanahu wa tacaala xagga faraxa waa ka daran yahay uu ku farxayo toobadkeenka addoonkiisu u toobad keeno markuu u toobad keenayo addoonkiisu midkiin oo dhul bahgooye ah oo cidlo ah ku sugan oo daabaddiisii sahaydu u saarnaydna ay ka baxsatay oo dabadeedna ka quustay oo dabeedna geed ku hoos dhanqalmay oo ku hoos dhacay oo iska hoos jiibsaday geed markay talafara ka haaday isagoo daabaddiina ka quustay fa baynamaa huwa kadalika idaa huwa biha qaa'imatun cindah xaaladdu iyadoo halkaa maraysa saa waaba iyadiioo daabaddiiba dul taagan oo fa akhada bikhidaamiha dabeedna wuxuu qabtay hoggaanka uma qaal min shiddati alfarax kadib farxaddii isaga oo ishanan la oo aan iskaantaroolayn ayaa wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk akhda'a min shiddati alfarax allahayow waa halmaansan yaho wuu isla maqan yahay waxa weeye isma kaantaroolayo allahayow adiguna addoonkaygii baa tahay buu yidhi anna rabbigaa baana markaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam akhda'a min shiddati alfarax faraxa darnaantiisii buu gefay waaba halmaamayba faraxa darnaantiisii heerka uu la marayo ayuu awoodi kari waayey garanna kari waayey inuu yidhaahdo allahayow adigu adaa rabbigay ah intaasuu garan kari waaye hadalkii codkii baa la boobay ila wuu garanayo rabbigii waa yaqaanaye faraxa darnaantiisii ayuu iskaantarooli kari waaye markaasuu yidhi allahayow adigaa addoonkaygii ah cagsiguu ka dhigay anna rabbigaa baana marka ilaahay addoonkaasi siduu u farxay isagaa ka farax daran madaariju saalikiinka ibnu qayim wuxuu ku odhan jiray axadulcaarifiin isagoo ka sheegaya waxyaabaha ay marka ahlulcilmigu halkan oo kale ku miithaaliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mathalulaclaa buu mar kastaba leeyahay mahmah la arko iyo tusaale la arko ka ugu sarreeya khalqigiisana laguma shabbahi karo
laakiin waxa weeyaan xaaladda oo qofka waxa uu dareemi karayo lagu dareensiinayo ayaa loo tilmaamaya. marka wuxuu yidhi ilmaha yar hooyadii isagoo dantiisa u soo qabanaysa oo le kaalay hooyo dantaada u kaalay, hadduu ka cararo oo albaabka ka boodo dibaddaa u cararo oo dabadeedna hooyadii dee albaabkeedii iska xidhato, cid dabeedna hoyse uu waayo, dabeedna markuu cid hoyse waayo oo waxoogaa wareegaalsado iska soo noqdo oo halkaa albaabka hoostiisa iska jiifsado, halkaa ku dhaco, dabeedna kala dhanqalmo oo ku gamco, oo hooyadii ay markaa albaabka furto saawa ilmaheediioo halkan kala dhanqalmay oo gartay cid kale oo u turayso, u naxariisanayso, oo hoynayso, oo dantiisa wada, oo bani aadamka hooyadii uga dhowi inaanay jirin, oo dabeedna hooyadii ku boodday oo laabta gelisay, oo dabeedna tidhi markaa soo gal guriga, waxa weeye ilmahaygiiow ilaahay baa kaga farax badan markuu arko addoonkiisii inuu yaqiinsaday cid alle uga naxariis roon oo uga turis badan oo uga markaa maslaxaddiisa uga ogaalshiya badan inaanay jirin alle mooyaane. markuu soo noqdo ee toobadkeenka uu yahdo rabbi ow adiga cidaan ahayn ma lihi, cid dhibka i haysa markaa kaaga ogaal badani ma jirto, cid iiga kaa naxariis badani ma jirto, cid waxaad ii awoodayso isiin karta ayaan adiga ahayn ma jirta, adaan kuu soo noqday rabbiow. yacnii waa xaaladahaad u qiimo badan, ilaahayna addoonkiisa ku qiimaynayo. addoonkiisaa yaqiinsaday meel loo irkadaa inaanay jirin alle mooyaane. marka ugu horrayn naftayda iyo tiinnaba waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu ka cabsanno, u toobadkeenno, oo dunuubteennu waa badan tahaye waxa weeyaan toobadkeen dhaba ula nimaadno, bishan ramadaanna khayr iyo wanaag iyo innagoo dunuubtii ka toobadkeennay aynu qaabillo. waxaynu kaloo ku qaabilaynaa bishan iyada ah istishcaaru alfadli alcadiim waalaajru alkaiir almutaratib cala asiyaami waalqiyaam, innaga oo dareensan fadliga iyo galladda weyn iyo ajarka faraha badan leh ee ka dhalanaya soonta iyo qiyaamka ramadaanka aynu la imanayno ee bishan iyada ah, innaga oo yaqiinsan fadliga ku sugan soonta aynu ramadaan la imanayno iyo qiyaamka aynu la imanayno fadligiisa. innaga oo taa dareensan waa inaynu qaabilnaa oo ka faa'iidaysannaa. nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka abi hurayra ee saddexda siiqa ku yimi, maalan man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbih. qofka bisha ramadaan sooma iimaan uu rumaysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waajibka soomtan rumaysan yahay iyo khayrka iyo wanaagga loo yabohay iyo waajib inay ku tahay rumaysan yahay, ixtisaabuu ilaahay kaga ajar darbayo ikhlaas ay ka tahay, ee cid kale istus iyo ciduu ka cabsanayo tidhi soon wa ilaa haddii kale jeelkaannu ku dhigaynaa iyadaanay jirin, ee ilaahay cabsidiisa uu sidaa u yeelayo oo uu rumaysan yahay khayrka iyo wanaagga ku sugan, ilaahay dartiina uu ku markaa raadinayo ajar dalab uu yahay, ee wax kaloo ku kallifaya aanay jirin, ee thawaabkaa loo yabahay uu raadsanayo, dunuubtiisa wixii hormartay waa loo dhaafaa. isla xadiiska saxiixaynka waxaa kaloo ku soo aroortay siiqada labaad, halkaa man saama ay ka ahayd man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi. qofka bisha ramadaan qiyaamkeeda la yimaada ee istaaga ee qiyaamuleylka la yimaada gufira lahu ma taqadama min danbi,
siiqada saddexaad ee xadiiska saxiixaynka ku timi waxa weeye man qaama laylata alqadr saddexduba waa sugaye man qaama laylata alqadr iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbih qofka habeenka laylatulqadriga ilaahay dartii isu taaga isagana dunuubtiisa markaa hormartay waa loo dhaafaa marka qofkii bisha ramadaan sooma ama qiyaamu leylka la yimaada ama habeenka laylatulqadriga alla waafajiyo intaba gufira lahu maa taqadama min denbih marka innaga oo ajarkaa yaqiinsan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag kaga doonaynaa waa inaynu bisha ramadaan qaabilnaa nebiguna sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa waa ugu bishaarayn jiray ataakum ramadaan shahrun mubaarak war waxaa idiin yimi ramadaan oo ah bil barakaysan waa hadal aad iyo aad u weyn nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo saxaabadiisa ugu bishaaraynaya si maanu ugu bishaarayn iyadoo cadowgoodii la xidhayo shaydaankii laga xidhayo si maanu ugu bishaarayn iyadoo ay ku jirto habeen waxa weeye ka khayr badan 1,000 bilood oo u dhigmaya 83 sano iyo 4 bilood si maan loogu bishaarayn iyadoo jannada albaabadeedii ballaqan yihiin si maan loogu bishaarayn iyadoo albaabadii naartu ay wada xidhan yihiin si maan loogu bishaarayn iyadoo 8 albaabee jannada mid ka midoo rayaan la yidhaahdo waxa weeyaan cidda soonto mooye cid kale aanay gelayn si maan loogu bishaarayn iyadoo rukni ka mida arkaanul islaamkii la gudanayo oo soomta ramadaana markaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay ataakum ramadaan shahrun mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaamah war waxaa idiin yimi ramadaan oo ah bil barakaysan oo ilaahay caza wajalla ee uu ku farad yeelay korkiinna soomkiisa tuftaxu fiihi abwaabu asamaa waxa la fura albaabada jannada albaabada samadaa la fura oo fii riwaayatin ukhra marka abwaabu aljanna albaabada samada la sheegay waa albaabu marka abwaabta maxruwiya marka jannada wa tuqlaqu fiiha abwaabu aljahiim albaabada jahiimkana waa la xidhaa oo albaabada jahannamana iyo naarta albaabadeedana waa la xidhaa wa tughallu maradatu shayaadiin waxa markaa la silsiladeeyaa shayaadiinta kuwooda madaxa adag leh fiihi leylatun khayru min 1000 shahr waxaa ku jira habeen ka khayr badan 1,000 bilood waa 83 sano iyo 4 bilood la ajar maahe waa ka ajar badan yahay oo aanay laylatulqadri ku jirin isagaa ka fadli badan man xurima khayrahaa faqad xurim qofka laga hoojiyo khayrkeeda bishaa khayrba waa laga hoojiye ka bishaa khayrkeeda laga hoojiyo ka khayrba waa laga hoojiye marka xadiiska masalan imaamu axmed iyo nasaa'i iyo kayrkoodba marka ay soo bixiyeen sheekhu alalbanina saxiixu targhiib watarhiib iyo tamaamulminna iyo kayrkiiba uu ku saxiixiyey sidaasi buu tilmaamayaa marka bishan khayrkaasaa ku sugan marka waxaynu qaabilaynaa innaga oo yaqiinsan khayrkaa faraha badan leh inaynu ka faa'iidaysanno oo ah fursad dahabiya oo inay dib inoo soo mari doonto aynaan waru hayn xitaa haddadaa cid gaadhi doonto aynaan waru hayn habeenkiiyo labada inaga xiga marka alleh hadduu inagu simo subxaanahu wa tacaala waa inaynu ka faa'iidaysanno oo waxa weeyaan si yar aanay inagu dhaafin maadaama waxaasoo khayra dhex qulqulayaan ayaa waxa weeye jibriil yidhi raqima alanfu man adraka ramadaan falan yuqfar lah waxa weeyaan san alla ha boodheeyo oo sankiisu ha dhul dhaco oo dulli ha fuulo qof ramadaan u soo gashay oo aan loogu dembi dhaafin ee markaa waxa weeye rasuul allow aamiin ii dheh nebiguna aamiin buu u yidhi marka waa waciid adag malaa'igta sayidkoodii
oo jibriil ah iyo sayid waladi aadam oo nabiyullaahi muxamed ah ayaa midna ducaynaya midna aamiin leeya. waa waciid adag innagoo aan taxta almashii'a inay yihiin aan ka saaraynin oo aan lahayn ilowba ilow way ku dhacaysaa, misna waa waciid aad iyo aad u adag weeye. waa waciid aad u adag oo ay tahay qofka iimaanka lehi inuu dareemo qalbigiisana u dhaqaajiyo. waxaa kale oo runtii mudan nebigu sala allahu calayh wasalam umuuraha aynu tilmaannay oo dhani habeen gaar kuma aha, wixii aan laylatulqadriga ka ahayn habeen gaar kuma aha. laakiin nebiga waxaa ka sugan xadiiska tirmidiga iyo musnadu imaamulaxmed iyo hayrkiiba ku sugan ee saxiixa ah inuu yidhi idaa kaana awalu laylatin min ramadaan, marka ay ahaato habeenka koobaad ee ramadaan sufidat ashayaadiin wa maradat aljin, waxaa la silsiladeeyaa shayaadiinta iyo jinka kuwooda madaxa adag leh. wagulliqat abwaabu nnaar falam yuftax minha baab, albaabada naarta waa la xidhaa, albaabna lagama furo. wa futixat abwaabu aljanna falam yuglaq minha baab, albaabada jannadana waa la furayaa, mid ka midana la xidhi maayo. wa yunaadi munaadin, mid dhawaaqaya yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari aqsir walilaahi cutaqaa'un min annaar wadalika kula layla. nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam mid dhawaaqaya wuxuu odhanayaa waarkii khayrka rabayow soo qaabil, khayrka waa kan. khayr haddaad rabtay waa kan khayrka, waa yimi. bisha intaasoo khayr dhex yaallaan baa ku soo qaabishay, waa habeenka koobaad. howlahan oo dhani habeenka koobaad bay bilaabmayaan. waxaa la odhanayaa waarkii khayr rabayow khayrka waa kan ee soo qaabil. haddaad qur'aan akhris rabtay, haddaad wax la bixis iyo sadaqad rabtay, haddaad alamru bilmacruufi wanahyi cani ilmunkar rabtay inaad xumaantana diiddo wanaaggana ummadda farto, haddaad rabtay waxa weeyaan inaad dadka jilicsan u ixsaan samayso, haddaad rabtay inaad qaraabada xidhiidhiso, haddaad rabtay inaad deriskaaga u debacdo, waar khayr dhammaantii kii rabayoo waa kana soo qaabil, ha ka jeesan, waad haysaayo u soo jeeso. waar kii shar rabayow ee balaayo ku jirayow ee waxa weeyaan fisqi iyo xumaan dhex dabbaalanayayow ee bidco iyo dalaal ku dhex jirayow ee qaraabagoysnimo iyo markaa waalid caasinimo iyo xumaan badanoo noocyale ku jirayow war iskaga gaabso, war toobad keenoo soo noqo iskaga gaabso. wayaa baaqiya shari aqsir, war ka gaabso, war iska daa. war ramadaan xumaanta hawla imanine ka daayoo ka soo noqo. sidaasi baa mid ku dhawaaqaya, malag baa sidaa ku yeedhaya oo dhawaaqaya oo leh warkii xumaan rabayow war ka daa bishan oo kale caynkaa looma xadgudbee iyadoo bil kastaba xumaantu xaaraam tahay, war mawsim weyn weeyaane ka daa, war ka daa xumaanta oo ka joogso. kii wanaag rabayowna meel laga faa'iidaysto maantaad joogtaa ay ka faa'iidayso. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam walilaahi cutaqaa'un min annaar, ilaahay waxa uu leeyahay kuwa uu naarta ka xoreeyo wadalika kula leyla, habeen kastoo ramadaan. waa habeen kasta, 10ka dambe maaha keligood. habeen kastoo ramadaan cid naarta waajibsatay oo alle ka xoraynayaabaa jirta. ilaahay subxaana wa tacaala haynaga yeelo kuwa uu naartiisa ka xoreeyo, jannadiisana uu ku galladaysto. alle subxaana wa tacala haynaga yeelo. marka runtii waa khayr aad u weyn, habeen kastay socotaa. habeen kastoo ramadaan ilaahay cid buu xoraynayaa, khayrka iyo wanaaggaasina waa jiraa, malaguna waa dhawaaqaya. bani aadamkan iska qafloonida badan leh ayaa loo yeedhayaa oo la leeyahay war iskaga gaabso xumaanta, war wanaagga u soo jeeso, khayrkan si aad u heli doonto alla oge, ka faa'iidaysa fursadda. marka xaqiiqatan waxaynu ku qaabilaynaa innaga oo fursadda dareensan dahabiga ina soo martay, ilaahayna ajar kaga doonayna, dartiina u samaynayna, rajaynaynana khayraadka badan ee alla yaboohay
inaynu ka qayb noqonno oo ehelkeeda alla inaga dhigo taasi baynu qaabilaynaa bisha ramadaan ee barakaysan waxaynu kaloo runtii qaabilaynaa innaga oo waxa weeye deeq markaa gacanteenna furayna oo wax ku sadaqadaysanayna alxirsu calaa iftaar الsaa'imiin wاltasaduq cala almasaakiin wagayrihim marka min adducafaa marka waxaynu qaabilaynaa bishan iyadaa innagoo ku dadaalayna dadka sooman inaynu aafurinno bacdu salaf qaarkood baa dhowr boqol oo qof ku talageli jiray maalin kasta inay aafuriyaan iyagaan waxba haynin wax la sheega haynin waxa weeye hadday midhmidhtimira iyo wax yar hadday xitaa gaadhsiiyaan ayaa ku qiimo badnayd agtooda ma aha shaygu mar kasta fadligu waxa weyn oo aad dhiibto kuma jiro waxay ku jirtaa ilaahay dartii inay kaa tahay wixii aad awoodaysana aad bixiso halka soomaalidu baa ka tidhaahdo ninka weelka madhan gacanta kuu geliya ayaa ka buuxana kuu geliya qofku hadduu waxa yare uu hayo wax ka quudho waxa weyna waa quudhaya marka waxaynu bishan qaabilaynaa innaga oo ku dadaalayna dadka sooman ee baahan inaynu aafurinno dadka masaakiintan waxba haysan hadday doonaan yay soomanaaninba ee danta u run sheegtana inaynu gacanta u fidinno nebigu sala allahu alayh wasalam kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakuun maalan ida kaana fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil ila aakhiri alxadiid xadiiska saxiixaynka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan ibnu cabbaas inuu tilmaamay nebigu inuu ahaa dadka ka ugu deeqsisan rasuulku dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa waxaanu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ka ugu sii deeqsisan marka uu jibriil la kulmo fa yudaarisu lqur'aan qur'aankana uu la mudaarasaynayo habeen kasta oo ramadaana jibriil waa la kulmi jiray nebigu markaa uu jibriil la kulmana khayrka wuxuu uga degdeg badnaa min arriix almursala dabaysha ufadee roobka ka horaysa khayrka waa uga degdeg badnaa nebigu sala allahu alayh wasalam marka ramadaan waxaynu qaabilaynaa innagoo nebigeenna kaga dayanayna sala allahu alayh wasalam bisakhaa iyo watasaduq deeqsinnimo iyo wax la bixis iyo wa iftaaru saa'imiin kuwa sooman inaynu aafurinno oo aynu la dareenno gaajada markaynu bisha ramadaan maalinkii aynu soomannahay inaynu dareenno dadka maalin oo dhan bilaha kaleba sidaa u gaajoonaya ee beerku u gubanaya baahida ay qabaan dabeedna ay taasi inagu xambaarto inaynu u naxariisanno walaalaheenna baahan xadiiska zayd ibnu khaalid aljuhani radia allahu tacaala canhu saxaabigaasi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalam inuu yidhi man fatara saa'iman laa yanqusu min ajri saa'imi man fatara saa'iman kaana lahu milu ajri sawmihi hayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qofka aafuriya mid sooman ajarkiisoo kaluu leeya kaa sooman ajarkiisoo kaluu helaya iyadoo kii soomanaana ajarkiisii aan waxba laga dhimayn wax allaali wax ka dhinmaya aanu jirin iyadoo kii soomanaana ajarkiisii aanay waxba ka dhinmaynin oo wax ka nusqaamaya aanay jirin ayaa muxuu ku kasbanayaa afuriddaa uu aafuriyey oo laga yaabo midhar timira iyo waxaa dhaamin inuu siiyey ayaa soomtiisa oo kale ajarkeedii buu helayaa marka aan isku dayno wakhtiguna waa adag yahay wakhtigan iminkaaynu ku jirnaana aad buu adag yahay ummadda baahan inaynu takaaful samayno oo waxa weeyaan ummadda baahan aynu gacanta u fidinno oo aafurinno oo reerkaa tahid maanta intaa ku aafura wax saalan maaha qofka aad aafurisay soomtiisa ajarkeeda oo kale ayaad helaysaa iyadoo waxa weeye isagana ajarkiisii aan waxba laga nuqsaaminayn soonta ajarkeeduna wax sahlan ma aha waxaynu qiyaasi karna ma aha
nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska abi hurayra waxa ka sugan inuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri xadiis al-qudsi kullu amal ibn adam lah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih amal kasta bani aadamku isaga leh soomta mooyaane soomta alle wuxuu ana iska leh aniga soomta iska leh anaana isaga ka abaalinaya ka soomay ana ka abaalinaya riwaayadka waxa qaar koodna waxa ku timi acmaasha waxa la laban laabaa 10 ilaa 700 oo dhicfi 10 ilaa 700 oo laban laab ila ma soomta mooyaan soomta ana iska leh buu alle ana ka abaalinaya adoonkayga wasiyamu junna soomtu waa gaashaan yastajinnu biha al-'abdu min an-nar yani adoonku uu iska xijinaya naarta waa gaashaan adoonku iskaga beegayo naarta wida kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yashkhab hadii uu maalinka ahadkiin soomtiisa uu marka ahaado oo ahadkiin uu soomo oo aanu wax rafath ah oo fuxshi iyo fool xuma ah ama waxyaaba muqaddimatul jamaa'a iyo waxyaaba aanu la imanin oo aanu qaylin oo yashkhaus marka saxaabna aanu noqon fa in saabahu ahad aw qatala hadii qof la caytamo ama uu la dagaalamo falyaqul inni saa'im haydaahdo anigu waan soomana qofka ahlu soomka sharaf iyo akhlaaq buu leeyahay aniga iima qalanto waan soomanahay ee waxa aad qasanayso inaan kula qasto والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إله النفتيد أي قعنتيسا كجرتان كدارتي بي نبي صلى نفت نبي محمد إله أي قعنتيسا كجرتان كدارتي اسبدلك كدعيا يهرغا كصوبحيا أفكا كصومن نقصكا كصوبحيا إلهي أكتيسا ريح المسك waa ka udgoonyaa miskiga oo wax la arko ka ugu udgoona waa ka udgoonyaa afkaasa ka sii udgoon inda Allah lishaa'imi farhatan yafrahuhuma qofka soomanna laba farxadood oo farxabu leeyahay idha afdara farih wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmi marka uu aafuro galab kasta ha noqoto ama aafurada guud ee marka ciidaba ha noqoto uu farxaya waa farxaya marka uu rabbigii la kulmana maqaamka iyo qiimaha soomtiisa yeelatay oo arkana waa farxaya soomta noocaasiya ee uu alle leeyahay ana iska leh oo ajarkeeda lama qadari karayo maadaamay sabir marka ay tahay oo ilaahay daacadiisa ku sabrayo xumaantii ka sabrayo qadarka alle u adkaysanayo oo aan wacdi sabirku ay ku kulmayso إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مثلا حساب الآن بالغو أجر سينايا marka soomta heer kaas ah ayaa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofka qof aafuriya soomta aanu ajarkeeduba xadka lahayn oo kale helaya qofkaasi hadduu qof khayr qaba yahay oo soomtiisaasi aad u qiimo badan tahay aad aafurisay soom aad iyo aad u weyn iyo ajar aad iyo aad u ballaaran oo alla uu og yahay ayaad helaysaa marka taana aan ku dadaallo waxaynu bisha ramadaan qaabilaynaa inagoo gacmaheena furayna oo deeqdii nabiga ku dayanayna sallallahu alayhi wasallam oo dadka sooman aafurinayna oo dadka jilicsan u naxariisanayna oo marka tamaniyayna qalbigana ku hayna inaynu gaadhno inaynu rabbigiin markaynu la kulanno aynu ku faraxno soomteena maqaamka ayna gaadhsiiso inagoo taa rajaynayna ayaa aynu samaynaynaa inaynu waxa weeyaan soomta sidaa ku qaabilno waxaynu kale oo soomta qaabilaynaa inaga oo ilaashanayna carabkeenna iyo jawaarixdeenna iyo xubnaheena kale say u dhan yihiinba waayo haddaynu soonno oo misna duryankeennu bato oo xadgudubkeennu bato waa dhici karta ajarkii soomteennu inuu baaba'o man lam yadac qawla azuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabah xadiiska abi hurayra sa nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam qofka aan ka tegin hadalka beenta ah iyo camalka raacsan ee isaguna qaabka daran leh
ilaahay wax muraada kama laha inuu cunista iyo cabista iska dhaafo waayo soon markaa uu qiimaynayo iyo alla ka cabsi uu ku soomaya maaha kaanama caado uu dadka uun iskala raacaya inay u ekaatay marka taas soomteenu waa inaanay noqone soomul khaasa waa inay noqotaa soomta dadka gaarka ah ee rabbi ka baqaya waa inay soomteenu noqoto oo si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu isaga ilaalino soomteenna inaynu ajarkeeda baabiino waxaa kaloo nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam xadiiska ibnu maaja iyo nasaa'iga iyo kayrkiiba ee abi hurayra ruba saa'imin laysa lahu min siyaami ila aljuuc badana mid soomtiisa aan gaajo mooye wax kale ka dheefayn gaajo mooyaane badana mid aan wax kale ka dheefayn soomta wa ruba qaa'imin laysa lahu min qiyaami ila sahar badana mid waxa weeye soo jeedka habeenkii u leeyahay salaatuleyl baan u taagnahay aan markaa waxa weeye qiyaamka uu u taagan yahay soo jeed mooyaane aan wax kale ka faa'iidayn badana dhafar unuu dilayaa badana marka waxaynu bishan ramadaan qaabilaynaa insha allahu tacaala innaga oo xubnaheenna ilaalinayna innaga oo iska dhowrayna hadalka xun iyo camalka raacsan ee waxa weeye baabiinaya khayrka iyo wanaagga aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka filanayno waxaynu qaabilaynaa ramadaan innaga oo qur'aanka akhristiisa badinayna al-ikthaar min tilaawati alqur'aan wa tadabburi macaaniih innagoo qur'aanka akhriskiisa badinayna oo macaanidiisa fiirfiirinayna oo duruusta la dhigaya tafsiir iyo kayrkeedba le ka faa'iidaysanayna ayaynu bisha ramadaan qaabilaynaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama xadiiska cuthmaan radia allahu tacaala canhu oo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxa idinku khayr badan qofka qur'aanka bartay ee ummaddana baraya xadiiska abi umaama iqra'u lqur'aana fainahu ya'ti yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih war qur'aanka akhriya maalinka qiyaama wuxuu imanayaa isagoo u shafeeco qaadaya ciddii akhrin jirtay waa bishii qur'aanka alla soo dejiyey subxaana wa tacaala marka qur'aankuna marka horeba ajar badan baa ku jira fii kulli waqtin in la akhriyo ramadaanna way ka sii duwan tahay oo salafu haadihi alumma waxay u danayn jireen si aanay bilaa kale u danayn saddexdii maalmoodba in badanoo ka mid ay mar bay dhammayn jireen qur'aanka qaarkood 10ka dambe markay gaadho habeen baabay ku dhammayn jireen aad bay u danayn jireen qur'aanka akhriskiisa marka xaqiiqatan innaga iminka waxyaabaa inaga mashquuliyey waxaa ka mida waxaan ay yidhahdaan atawaasul alijtimaaci baraha bulshadu waxyaabaan ay ku wada xidhiidho marka runtii bal arrintaa inta aynu awoodi karayno aan dabar iskaga xidhno oo bal aan isku dayno inaynu yarayno haddaynaan daynayn inaynu yarayno oo calal aqal ama lambarkii hore lagu isticmaali jiray in la bedelo ama layskaba xidho iyo waxyaaba la mid ah oo bal la yareeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa loo faaruqo muddadaa kooban inaynu si qiimale uga faa'iidaysanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa aynu fiirfiirinno maxaa yeelay xaraf kastoo ka mid ah 10 xasanaad baa lagu helayaa 10 xasanaad baa lagu helaya laa aquulu alif laam miim xarf walaakin alifu xarfu wallaamu xarfu wa miimu xarf alif laam miim waa xaraf qura nebigu odhan maayo sala allahu alayh wasalam ee alifkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf intaasoo quraad 30 xasanaad ku helaysaa marka aan ku dadaallo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa sidaynu in badan u akhrii lahayn ee aynu uga faa'iidaysan lahayn waxyaabaha kale ee aynu bishan ku qaabilayno waxaa ka mida inaynu ilaahay sacabada hoos dhiganno adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado inaynu rabbi barinno oo gacmaha hoos dhiganno waxay weeye arrin aad iyo aad u muhiima waxaana ka sugan nabiga sala allahu alayh wasallam laysa shayun akram cala allahi tacaala min adducaa ma jiro ilaahay agtiisa wax kaga qiimo badan duco gacmaha in la hoos dhigto aad isu dullayso wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu leeyahay barya waan idinka aqbalayaa waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaac ida dacanii falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun
ilaahay subxaana wa tacaala cidda addoommadiisa ee baryaysa waa u dhow yahay. ilaahay subxaana wa tacaala waa u dhow yahay isagoo fowqa carshihii ku sugan, wax ka qarsoon ma jiraan, bicilmihi buu alle ugu dhow yahay subxaana wa tacaala. marka ay sidaa tahay aynu si badan rabbi gacmaha u hoos dhiganno, ilaahay aan weyddiisanno khayru dunya waalaakhira inuu ina waafajiyo, aynuna una inaga fogeeyo shar dhammaantii aan si badan gacmaha u hoos dhiganno. inuu khayr oo dhan alle ina waafajiyo, shar oo dhanna inaga badbaadiyo, acmaasheennana inaga aqbalo, si badan aan gacmaha u hoos dhiganno, in badan aan ducaysanno. weliba wakhtigan suxuureedka aynu suxuuranayno ulusuleyl alaakhir aan si badan rabbi gacmaha u hoos dhiganno oo ilaahay subxaana wa tacaala aan gacmaha kor ugu taagno, innagoo noocaasi ah oo ilaahay u tadarrucayna bisha ramadaan aan qaabilno. qodobka iigu dambeeya waxa weeye alictinaac bicashri alawaakhir, inaynu danayno oo si gaara u danayno tobanka dambe. bisha ramadaan oo dhan innagoo khayr iyo wanaag ku qaabilayna, tobanka dambe weliba inuu inooga sii socnaado. maxaa yeelay nebigu sala allahu alayh wasalam tobankaa dambe wuxuu dadaali jiray maa laa yajtahidu fii hayrih, inaanu inta kale dadaalin buu dadaali jiray, oo dadaalka waa sii labanlaabi jiray oo guntigu dhiisha iskaga dhigi jiray. tobankaa dambena allah hadduu ina gaadhsiiyo subxaana wa tacaala, aynu si weyn uga faa'iidaysanno oo aan juhdigeenna sii labanlaabno oo aynu ka baadhno waxa weeye habeenkii leylatulqadriga ee khayru min alfi shahrin allah uu ku tilmaamay inuu 1,000 bilood ka khayr badan yahay. 1,000 bilood lama khayrahe waa ka khayr badan yahay. 1,000 biloodna waa 83 sano iyo 4 bilood. muddadaasi waa ka khayr badan yahay, wax sahlan maaha. haddii allah ina waafajiyo waa arrin aad iyo aad u qaali ah. marka arrintaana aynu si dheer oo waxa weeyaan xeel dheer aan isugu dayno inaynu ku guulaysanno. taasina waxaynu ku helaynaa inaanay habeennaba ina siigin oo maalmaha isdheer ha loogu sii waxa weeye filis bato oo meelaan loo sii filayo ha noqoto. laakiin qowlka saxiixa tobanku dhexdiisa waa guurguuraya habeenku, ee waa inaynu isku daynaa tobanka inaan maalin habeen qura ina siigin, aynu cibaado ku noolayno. ilaahay subxaana wa tacaala xaqa hayna waafajiyo, hana inaga dhigo kuwii bisha ramadaan ka faa'iidaysta, xaqana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hagaajiyo, baadil dhammaantiina uu ka leexiyo, jamaceennana jamac ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa uu ku galladaysto, naartiisana ka badbaadiyo, ha inaga yeelo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.